xarunta hidaha iyo dhaqanka ee Awjaamac Cumar Ciise ee magaalada Nairobi ayaa dhalinyaro fara badan oo ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo fududeysay in ay bartaan dhaqanka Soomaaliyeed. Warbixintaasi waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena Bashiir Balan. gidaarada xarunta waxaa lagu xardhay sawirada agabka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. daayar fara badan oo isugu jira rag iyo dumar ayaa u soo waxbarasho taga. xarunta Awjaamac Cumar Ciise waa xarunta kaliya ee lagu barto dhaqanka Soomaalida ee ku taal xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. waxyaabaha lagu bartana waxaa ka mid ah barashada timadabista, samaynta masafta, cilaansaarka iyo waxyaabo kale oo badan. Saamiya Cismaan Boos waxay ku dhalatay dalka Kenya ayada iyo arday kale oo halkan wax ku bartay ayaan wax ka weydiiyay waxay barteen. waxa aan ka bartay waxyaabo badan ma sha Allah waxyaabo badan bay noo faa'iideeyeen sida loo sameeyo farsamada gacanta sheekooyinkii Soomaalida hore dhaqamadii hore Soomaalida isticmaali jirtay markii aan anigu imi faasti waxyaabo badan ba iga daxsoona balse marka aan buugaagtan akhristay waxyaabo badan baa iftiimay ma sha Allah waxaan kale oo meeshan aan ka bartay muhiim sida dharka dhaqanka loo xirto sida dharka dhaqanka loo xirto markii hore ma aan aqoonin balse laakiin hadda si hab gaar ah ayaan inagu leenahay oo loo xirto halka waana la baran sida timaha loo tidco waana la baran waxyaalo badan baan ka baranay wax aan markii hore aan garanaynin waxaan ka baranay horta waa meel aan wax ku akhrisano dadka dhan wax ku akhristaan oo cilmi baaris lagu sameeyo waxaan ka baranay hidaha iyo dhaqankii buugaag taariikhdii Soomaaliyeed iyo wax inta qanaheerka kala duwan ay soo martay baan ka baranay waxaan ka baranay qalabyadan samaysan sida diiraha iyo waxyaalahaas mid walba wax loo isticmaalo marka waxa waaye wax badan aan ka faa'iidnay markii hore iyo hadda farqi weyn noo dhaxeeyo aad baan ugu faraxsanahay mar walbana waxa sii rajaynayaa in badan oo ii dhiman inaan sii barto Soomaalida oo dhan waxa rajaynayaa inay dad badan meesha yimaadaan waayo cilmi badan ayaa loo ogeen I didn't know before markii hore ma ogeyn meesha inay jirto laakiin alxamdulillah finally I joined arabta waxa kamid ah dhiilahan oo dhisha intaan caanaha lagu shubo la culo iyo dhiira badan oo kala duwan midka koorta geer laga lulo waxyaalo badan oo kala duwan aan ka bartay stiilna waa si practice gareyna inaan barto oo ku sii dhex jira waxaan bartaa kala jirka dhaqanka Soomaaliyeed si aan markii hore markaan Soomaaliga dhaqanku way u adkaa hadeerna dhaqankii waa bartay meeshan waxa la Awjaamac Ciise xarunta dhaqanka way dad badan oo iman karaan si aan maskaxdeeda markaan wax fahmayo u imaado meeshan si aan wax badan uga fahmo mararka qaarkood waxyaalaha ay u adkaado waa fahmaa meeshan buugaag badan aan wali aan arko ka faa'iiday wax badanna aan akhristo ayaan aadan abshir waxay ka mid tahay howlwadeennada xarunta Awjaamac waxaana wax ka weydiiyay xarunta goorta la furay waxa dadka lagu baro iyo waxa ku dhaliyay sidoo kale in ay xarun dhaqan ay furaan ujeedka loo aasaasay waxay ahayd markii horeeto meel wax lagu akhristo oo kale library oo kale ayaa loo aasaasay maadaama aysan jirin meel library ah oo free ah oo bulshada Soomaaliyeed intay imaadaan ay ka heli karaan buugaag luqadooda ku qoran oo Soomaali ku qoran ku English ku qoran ardayda rabaan inay wax akhristaan oo kale ku jaamacadaha ku iskuulada sare kulligood meel ay wax ku akhristaan oo free markaas ayada oo aysan jirin marka sidaas darteed ayaa loo aasaasay waxa ka baxa training badan tababaro badan ayaa ka baxa sida tababarka hadda koowaad oo ugu weyn wuxuu yahay farshaxanka kaasoo ah mid bulshada Soomaaliyeed ama maamooyinka ama adiga gabdhaha lagu baro maadaama guryahooda iska fadhin lahaayeen lagu baro inay gacantooda wax ka qabsadaan oo tahay sida dirmaha loo hagaajiyo kale falkinta cilaan saarista timaha sida loo dabo kale kuush sida loo taxo harqaanka workshopyo kala badan oo ay ka baxaan sida photographiga social media kuwaas lagu baraayo ayagana lacag ma ahan qof walba oo nagu soo biiraayo oo rabo inuu wax bartana aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan kula talin lahaa bulshada Soomaaliyeed ee inta garanaysa maana inta aan garanaynin inay xarunta soo booqdaan waxa yaala buugaag badan oo afkooda Soomaali ku qoran oo Carabi ku qoran oo English ku qoran dadka hataa rabo inay maxal dhahay
jaamacadaha dhalinyarada jaamacadaha dhigato kaleeto hadday research u baahan yihiin oo kale waa siinaa dhaqankooda ku saabsan marka waxaan dhihi lahaa inta naga maqan inayna soo booqdaan aad baan u soo dhaweynaynaa aw jaamac cumar ciise oo ahaa dhaqanyahan muddo ka badan 40 sano wax ka qorayay dhaqanka Soomaalida ayaa loogu magac daray xaruntan Bashiir Daahir Belal Jubaland TV Nairobi